بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan u salaamahayaa cid walba oo dhegeysanaysa oo hadalkayga maqlaysa. Maanta insha Allah waxaan ka hadli doonaa mowduuc muhiim u ah ayaan ka hadlay. Mowduucaasi muxuu yahay? Waa dagaalkii dhex maray Imaam Ali ibn Abi Talib alayhi afdal salaatu wa tasliim iyo Muawiya. Dagaalkaas isaga ah sida ina soo gaadhay waxyaabo badan baa la qariyay oo yani maanta sida la inoogu sheegay waxa weeye sidii ay wax u qorayaan si aan ahayn. Wixii waa qoran yihiin waa yaalaan laakiin si aan ahayn baa dadka wax lagu sheegay. Waxaa lagu sameeyey in la qariyo waxyaabo badan dadka laga qariyo oo ay ka mid yihiin hadalladii rasuulka. Dagaalkaas isaga ah markii la isweydiiyo laba qof hadday isdagaasho mid unbaa khaldan mid unbaa naseexan. Gar laba nin kama wada qoslisaa la dhaha oo haddii laba nin ay isqabsadaan mid unbaa maaragtay ay raacaysaa waxa xaqa ah midna khalad iyo baatil ayuu ku socdaa. Gar horta laba nin ma wada qaado oo gar nin unbaa iska leh. Marka haddii la dhaho ha loo kala gar qaado oo maanta hal la kala ogaado dagaalkaas isaga ah dadkii xaqa ku taagnaa sideen ku ogaan karnaa? Dad baa waxay ku dhahayaan maxaa inaga galay oo dadkaas xilligaa hore tegay aan u kala kala ogaanshaha inay khalad midka sax ku taagnaa mid khalad ku taagnaa maxaa inaga galay? Dad baa ku dhahaya. Taas aan ka jawaabno horta. Waxaa inaga galay horta taariikhahaasi adduunkeenan maanta aan ku noolnahay anagu saameyn badan bay ku leeyihiin. Waxyaabaha aan uga baahannahay inaan ogaano waxay tahay kow cibro qaadasho oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimka ah qisooyin ayuu inooga sheekeeyey hore u dhacay. Wuxuu inoo sheegay dad wanaagsanaa iyo dad xumaa. Wuxuu inoogu soo qaatay waxay tahay inaan ku cibro qaadano ayuu Ilaahay inoogu soo qaatay qisooyinkaas iyaga. Isagoo weliba Ilaahay qur'aankiisa oo ku dhahay oo rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam oo ku soo dejiyey faqsusil qasasa la'allahum yatafakkaruun. Qisooyinka ooga sheekee waxay u dhow yihiin inay fakiraane. Qisooyinkan saxaabadii dhex marayna iyo dagaaladii dhex marayna in laga sheekeeyo oo midkii saxnaan la sheego midka khaldanaan la sheego dadka cibro qaadasho u tahay. Cibro ayay u tahayo inaad ka leexato wadada qofka maaragtay xun inaad ka leexato wadada uu ku socdo iyo qaabka u dhaqmayo inaad ka leexato. Qofka wanaagsanna aad duruus asagana ka qaad sidoo kale wanaagiisii iyo aad ku raacdo wadadiisi uu ku socday wanaagga ah. Midda labaad dadkaas ayaga ah sida la inoo soo wariyo inagana la soo gaarsiiyey labada dhinac ee isdagaalahayba waxaa la dhahaa maanta radiyallahu canhum labada dhinac. Imaam Calina radiyallahu canhu baa la dhahaa, Muaawiyana sidoo kale sidaas la dhahaa. Iyo kuwii la dagaalamahayay oo ka garab socday ayadoo oo la leeyahay dad wanaagsan bay ahayn oo caadiliin ah oo sharaf leh oo hanuun maarta laga helay hadii la raaco. Marka laba qof oo dad isdagaalay oo midna xaq ku socday midna baadil ku socday sidee labadaba ay ku noqon karaan dad wanaagsan oo xaq ku taagan sidee ku noqon karaan? waa inaad kala ogaato. waa inaad ka dhigin qofkii daalimka ahaa qof wanaagsan. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا بإله الله فتمسكم النار. marka si aadan daalimkii garab u siinin oo sida hadda la inoo sheegay oo wanaag yani dadka isdagaalahayay labadoodiba wanaag loogu qiray xumaantii kuwii xumaanta wadana xumaantooda loo qariyay si aad u kala ogaato waxaa muhiim ah inaad ogaato hay'adii qofkii xaq ku taagnaa iyo qof baadil ku taagnaa iyo sababooyin badan oo muhiim ay tahay inaan u ogaano arrintaas ayada.
sideen ku ogaan karnaa haddaba sideen ku ogaan karnaa waa su'aal ilaahay baa inoo sheegaya sidaan ku ogaan karno haddii aad ilaahay aad raacaysa kalaamkiisa ilaahay baa kuu sheegay فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر marka ilaahay wuxuu noo sheegay haddii aan wax isku khilaafno inaan ilaahay iyo rasuulkiisa u celin waa haddii aan maaragtay aan nahay kuwa rumaysan ilaahay iyo maalinka qiyaamaha marka haddii aan ka leexano waddadaas ayada ah oo aan fulaan iyo sheekh fulaan iyo fulaan u laabanno waxay ka dhigan tahay dadka ayaga ahoo sidaas samaynhaya ilaahay hanaga ilaaliya annaga dadka sidaas samaynhaya in ay yihiin kuwa aan rumaysnayn ilaahay iyo maalinka qiyaamaha haddaba qadiyadan ayada ah maadaama laisku khilaafay oo dad ay jiraan dhaha maaragtay Mucaawiya qof xun buu ahaa qof munaafiq uu ahaa qof diinta dumin hayuu ahaa imaam cali xaq buu ku taagnaa dad dhahaa jira oo maaragtay ilaa hadda lagu gaalaysiiyo iyo kuwa le labadoodaba sax bay ahaayeen labada dhinacba sax bay ahaayeen Mucaawiya imaam cali labadooda sax bay ahaayeenoo waa laba nin oo saxaabo Abdul radiyallahu anhu la dhahayo qolo leh ayaa loo kala baxay waa isku khilaaf baa ka jira meeshaas ayada marka khilaafkaas isaga ah ilaahay wuxuu yiri ilaahay rasuulkiisu celiyo Soomaa aanu celina hada rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam rasuulkeena wuxuu inoogu cadeeyay arrintan ayada ah inay macna midka xaq ku taagan iyo midka baadil ku taagan wuxuu inoogu cadeeyay xadiiskii saxaabigii ahaa Ammar bin Yaasir radiyallahu anhu saxaabigaasi rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sheegay dadka dili doona iyo waxa uu u socdo asagaas ayada marka ayada la dilahay saxaabiga waxa uu socdo iyo kuwan dilahay waxa ay u socdaan ayuu inoo sheegay taasna waxay inoo cadeynaysaa labadaas dhinac midkii xaq ku taagnaa midkii baadil ku taagnaa imaam cali wuxuu horta rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu inoo sheegay in Ammar ay dili doonto fi abaaqiya fi amaartay xad gudubtay oo baaqiya ah inay dili doonto ayuu inoo sheegay rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam xadiidkaas ayaa intaas markii loo soo qaato walaalehen ahlu sunna waxay ku soo qaadanayaan aayad quraan ah oo maartay dhahaysa mu'miniintu haddii isdagaalamo kooxooda mu'miniin haddii isdagaalaan maartay maslaxaya aan ka gudubna hadda intaas ayada ah aan ka gudubno horay u soco xadiiska horay u wad rasuulku intaas kuma u ekaysiinin wuxuu inoo sheegay in Ammar uu ugu yeerahay kooxdaas ayada ah jannada uu ugu yeerahay yadcuuhum liljanna ويدعونه إلى النار xilligaas ayada dagaalka uu dhaxmarayo Ammar waa nin jannada ugu yeerahay kuwan uu la dagaalamay kuwa dilahayna waa kuwa maartay naarta ugu yeerahay waayahay annagu hadda waxaan rabnaa inaan kala ogaano labadaas kooxood midka xaq ku taagnaa midka baadil ku taagnaa Soomaa ninka jannada dadka ugu yeerahaya ma baadil buu ku taagay mise xaq waa iska cadahay xaq buu ku taagan ninkaas xaq ninka jannada ugu yeerahaya dadka ayaa xaq ku taagan ninka naarta ugu yeerahayana baadil buu ku taagan yahay waa nin baadil ku socda marka dadka isku khaldahaya wixii uu rasuulkeen inoo cadeeyay intay ka leexdaan isku khalday arday ayada hayad oo dhinaca kale u gadinhaya dadkaas ayaga waa dad rasuulkii iyo ilaahayba ka leexday rasuulku ka leexdeen hadalkiisa bay ka leexdeen ilaahayna sidoo kale meeshii uu u jideeyay inay u laabtaan markay iskhilaafaan ayay ka leexdeenoo rasuulka oma ina laabanin oo wayba ka tageen ba hadalkiisa oo cad yaala ay ka tageen oo dheheen maartay inaga daay hadaba rasuulkana wuxuu noo sheegay Ammar kooxda dilis inay baaqiya tahay inuu jannada ugu yeerayo ayagana ay naarta ugu yeerayaan Ammar kooxdiisana waxa ahayd kooxdii Mucaawiya ayay ahayd xadiidkan asaga ah oo Ammar wuxuu ugu yeerayaa waxay dil doonto fi'atul baaqiya wuxuu ku yaala Bukhariga iyo Muslimka laba kitaab ugu waaweyn iyo kitaab kale oo sunna ka mid laakiin labadaas kitaab ayaa waadna arkaysaan xadiista Ammarna waxaa dishay kooxdii
mucaawiya marka sidaas ayaan waxaan ku kala ogaanaynaa in imaam cali uu xaq ku taagnaa mucaawiyana uu baadil ku taagnaa oo kooxdiisii iyo asagaba ay dadka naarta ugu yeedhayeen marka wax la isku khaldi karaa ma aha wasalaamu calaykum